أحب الرياضة والملعب ومهما لعبت فلن أتعب. أحب الرياضة والملعب ومهما لعبت فلن أتعب. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa janalka Xareed Media. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha ee Xareed Media oo habeenada Arbacada iyo Jimcaha soo galayaan aad ka daawataan janalka Xareed Media. أحب الرياضة والملعب ومهما لعبت فلن أتعب. مهما ربحت فشيء جميل، إذا ما خسرت فلن أغضب. تيراريراريراريرارم تيراريراريراريرارم. daawadayaal waa habeenimo Arbaca ay soo galayso 28 Janaayo sanada 2020. qodobada barnaamijka ciyaaraha aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah FA Cup-ka wareegiisii afraad oo toddobaadkan la ciyaaray. natiijooyinka ka soo baxayna waa daawan doontaan naadiyaasha waaweynka City, United, Chelsea, Liverpool kulamada ay ciyaareen. natiijooyinkoodana waa idin soo gudbin doonaa. sidoo kale falaqaynta horyaalka Spain, Real Madrid oo adkaatay, Barcelona oo laga adkaaday, Atletico Madrid oo barbardhac lagu celiyay. natiijooyinka ay kala sareynta waa daawan doontaan. si la mid ah Juventus oo toddobaadkan la garaacay horyaalka Serie A kala sareyntiisa iyo natiijooyinka toddobaadkan asna waa daawan doontaan. sidoo kale waxaa daawan doontaan horyaalka Jarmalka, Bayern Munich iyo waliba Dortmund oo guuleysteen iyo kulamada kale laga ciyaarayna waa daawan doontaan. sidoo kale waxaa daawan doontaan horyaalka Faransiiska kulamadiisa laga ciyaaray toddobaadkan kala sareyntiisa iyo hogaaminaya goolalinta dhanka caawinta iyo waliba waxaa daawan doontaan kulamada toddobaadka soo aadan laga dheeli doono dhammaan horyaalada qaaradda Yurub. barnaamijka intaas ayaynu ku faaqidi doonaa adoo eebweyne yiraahdo. markana barnaamijkeena ayaynu gudagalaynaa daawadayaal. qodobkeena ugu hore daawadayaal waxa uu noqonayaa toddobaadkan waxaa horyaalka English Premier League laga ciyaaray koobka aadka u xiisaha badan ee FA Cup-ka. waxaynu dulmar ku sameyn doonaa naadiyaasha waaweynka ciyaaray koobka natiijooyinka ay ka soo hoyeen. Chelsea ayaa guul ka gaartay naadiga Hull City. Chelsea ayaa u soo baxday wareegga shanaad ee koobka FA Cup kadib markii ay ka adkaatay kooxda Hull City oo ay marti u noqdeen garoonkooda. ciyaartana waxay ku soo dhamaatay 2 gool iyo gool. qaybta hore ee ciyaarta ayaa waxaa lagu kala maray gool eber oo ay ku hogaaminaysay kooxda Chelsea. daqiiqadii 6aad kooxda Chelsea ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta waxaana gool eber ka dhigay Michy Batshuayi. qaybta labaad marka dib la isugu soo laabtay labada dhinac ayaa waxay sameeyeen qaab ciyaareed aad u fiican iyagoo abuuray fursado badan oo gool loo filan karay. daqiiqadii 64aad ayaa Chelsea waxay dhalisay goolkeeda labaad ee ciyaarta waxaana 2 eber ka dhigay Fikayo Tomori waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Ross Barkley. laakiin daqiiqadii 78aad kooxda martida loo ah ee Hull City ayaa la timid goolkeeda calanka. ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 2 gool iyo gool oo ay Chelsea kaga adkaatay kooxda Hull City oo ay marti u ahayd garoonkeeda iyadoo ay Blues u gudubtay wareegga shanaad ee koobka FA Cup-ka. dhanka kale Manchester City ayaa iyadana ka adkaatay naadiga Fulham oo ay ku martigelisay garoonkeeda Etihad Stadium. Manchester City ayaa u soo baxday wareegga shanaad ee koobka FA Cup-ka kadib markii ay guul ka gaartay kooxda Fulham. ciyaar ku soo dhamaatay 4 gool iyo eber ciyaartaas oo ka tirsaneed kulamada afraad ee tartankan. qaybta hore ciyaarta ayaa waxaa lagu kala nastay 2 gool iyo eber oo ay ku hogaaminaysay kooxda Manchester City. daqiiqadii 8aad kooxda Manchester City ayaa heshay gool kulaad waxaana gool u bedelay Ilkay Gundogan. ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay gool iyo waxba. daqiiqadii 19aad Manchester City ayaa la timid goolkeeda labaad waxaana 2 eber ka dhigay ciyaarta Bernardo Silva waxaana ka caawiyay goolkan saaxiibkiis Phil Foden. qaybta labaad marka dib la isugu soo laabtay labada dhinac ayaa waxay sameeyeen qaab ciyaareed aad u wanaagsan iyagoo abuuray fursado goolal badan loo filan karay. daqiiqadii 72aad Manchester City ayaa sii dheereysatay hogaanka ciyaarta waxaana 3 gool iyo waxba ka dhigay Gabriel Jesus iyadoo uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Joao Cancelo.
mar kale daqiiqadii 75aad xidiga reer Brazil ee Gabriel Jesus ayaa ka dhigay dheesha 4 gool iyo waxba ay ku hogaaminaysay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. gabagabadii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 4 gool iyo waxba oo ay ku adkaatay naadiga Manchester City kagana adkaatay kooxda Fulham oo ay marti u ahayd garoonkeeda Etihad. waxayna Sky Blues sidaas ugu gudubtay wareegga shanaad ee tartanka. faanolak faraqa ma qodno weeye haddii aynu sii eegno qodobkeena kale ama ciyaarta kale ee laga ciyaaray koobka FA Cup-ka dhankii naadiyaasha waaweynka Manchester United ayaa idana si raaxo leh kaga adkaatay naadiga lagu magacaabo Tranmere Rovers. Manchester United ayaa si raaxo leh ugu gudubtay wareegga shanaad ee koobka FA Cup-ka kadib markii ay ku garaacday kooxda Tranmere Rovers goolal gaaraya 6-0 ciyaar ka tirsanayd kulamada afraad ee tartankan. qaybta hore ciyaarta ayaa lagu kala maray 5 gool iyo waxba ay ku hogaaminaysay kooxda martida ahayd ee Manchester United. daqiiqadii 10aad ee ciyaarta Manchester United ayaa hogaanka u qabatay dheesha waxaana gool iyo waxba ka dhigay Harry Maguire oo difaaca kaga ciyaara Manchester United waxaana goolkan ka caawiyay Victor Lindelof. daqiiqadii 13aad Manchester United ayaa dhalisay goolkeeda labaad ee dheesha ciyaarta waxayna ka dhigtay 2 gool iyo waxba waxaana goolkaas u dhaliyay Diego Dalot iyadoo uu caawinta iska lahaa Antonio Martial. Manchester United ayaa sii dheereysatay hogaaminta ciyaarta daqiiqadii 16aad waxaana 3 gool iyo eber ka dhigay Jesse Lingard kadib markii uu goolkan ka caawiyay Harry Maguire. laakiin waxay sheeko ku sii xumaatay taageerayaasha kooxda ku ciyaaraysay garoonkooda kadib marka daqiiqadii 41aad ee dheesha uu 4 gool iyo waxba ka dhigay daafaca jooga dheer ee Phil Jones xilli uu goolkan ka caawiyay Andres Pereira. daqiiqadii 45aad ee ciyaarta ayaa weeraryahanka reer Faransa Antonio Martial wuxuu ciyaarta ka dhigay 5 gool iyo waxba waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiisa Luka Shaw. qaybta labaad marka dib la iskugu soo laabtay naadiga Manchester United ayaa halkeeda ka sii waday raadraaca ay ugu jirtay inay goolal dhaliso waxayna abuurtay fursado badan oo goolal loo filan karay. daqiiqadii 56aad kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa heshay gool kulaad waxaana gool u bedelay Mason Greenwood. ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 6 gool iyo eber. ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo gabagabowday 6 gool iyo eber ay ku adkaatay naadiga Manchester United kagana adkaatay kooxda yar ee Tranmere Rovers waxayna Red Devils sidaas ugu gudubtay wareegga shanaad ee tartankan. daawadayaal markana waxaynu eegaynaa dhammaan kulamada laga ciyaaray FA Cup-ka iyo waliba natiijooyinka ka soo baxay way eegi doonaa. sidoo kale waxaynu eegi doonaa kulamada ku celiska noqday ee bareejada ku dhamaaday. waa tahay daawadayaal markan aan eegno natiijooyinka ka soo baxay kulamadii FA Cup-ka. QPR waxay 2 gool iyo gool guul daraac kala kulantay naadiga Sheffield. Northampton iyo waliba Derby County eber ku heshiiyeen. Bamford iyo waliba Leicester City hal eber ku adkaatay. Newcastle United iyo Oxford eber isla dhaaf waayeen. Reading iyo waliba Cardiff City gool iyo gool ay galeen. Southampton iyo Tottenham gool iyo gool ay galeen. Coventry City iyo waliba Brighton City eber ku heshiiyeen. Millwall iyo waliba Sheffield United 2 eber Sheffield ku adkaatay. Bournemouth 2 gool iyo 4 gool waxay kaga adkaatay Barnsley. Burnley 2 gool iyo gool guuldar Norwich ayay kala kulantay. West Ham United gool iyo waxba West Bromwich Albion kaga adkaatay. Hull City 2 gool iyo gool Chelsea kaga adkaatay. Man City 4 gool iyo eber waxay kaga adkaatay Fulham. Manchester United Tranmere Rovers 6 iyo waxba ayay kaga adkaatay. naadiga Shrewsbury Town waxay 2 gool iyo 2 gool la gashay naadiga Liverpool. markana daawadayaal waxaynu eegi doonaa kulamada ku celiska ee la ciyaari doona kulamada FA Cup-ka. waxaa ka mid ah Cardiff City iyo waliba Reading. garoon Cardiff ayaa la aadi doonaa. Oxford waxay garoonkooda mar kale kula ciyaari doontaa Newcastle United. Brighton City Coventry City ayay soo dhaweey doontaa kulamada ku celiska. sidoo kale Liverpool ayaa gurigeeda waxay mar kale kula ciyaari doontaa naadiga Shrewsbury Town ay 2 gool gurigeeda kula soo gashay. Tottenham Southampton mar kale ay ciyaari doonaa kulan ku celis ah. Derby County iyo waliba Northampton mar kale ku celis ay ciyaari doonaa. kulamada la ciyaaran waxaa ka mid ah AFC Bournemouth iyo Arsenal
oo ayagana ciyaari doona daawadayaal markaana waxaynu gudagalaynaa ka sheekeynta horyaalka dhanka iyo waliba Spain kulmadii toddobaadkan laga ciyaaray warbixinada hadii aynu eegno toddobaadkan naadiga Valencia ayaa guul ay u qalantay waxa ay ka gaartay naadiga Barcelona oo ay ku martiqaaday gurigeeda Mestalla Stadium Valencia ayaa guul ka gaartay kooxda Barcelona oo marti u ahayd garoonkeeda kadib markii ay kaga adkaatay 2-0 kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga ee dalka Spain qaybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray barbadha eber ah qaybta labaad marka dib isugu soo laabtay labada dhinac ayaa waxay sameeyeen qaab ciyaareed aad u wanaagsan iyagoo abuuray fursado badan oo gool loo filan karay daqiiqadii 48aad kooxda Valencia ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta waxayna ciyaarta noqotay gool waxba kadib markii uu gool iska dhaliyay Jordi Alba daqiiqadii 77aad kooxda Valencia ayaa hogaanka ciyaarta si dheereysatay waxaana 2-0 ka dhigay Maxi Gomes waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Ferran Torres ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo gabagabowday 2 waxba ay ku adkaatay naadiga Valencia kagana adkaatay kooxda Barcelona oo marti u ahayd gordhow natiijooyinka kale ayaynu eegi doonaa balse aynu eegno Real Madrid ayaa guul dirqa ah ka soo heshay kooxda Real Valladolid oo ay booqatay Real Madrid ayaa guul dirqa ah ka soo heshay kooxda Real Valladolid oo ay ku booqatay garoonkeeda kadib markii ay kaga soo adkaatay gool eber ciyaar ka tirsaneyd kulanka 22aad ee horyaalka La Liga dalka Spain qaybta hore ee dheesha ayaa lagu kala maray barbadha eber ah qaybta labaad marka dib isugu soo laabtay labada dhinac ayaa waxay sameeyeen fursado dhowr ah oo aad u wanaagsan iyagoo abuuray fursado ay goolal iskaga kala dhali karin daqiiqadii 78aad kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta waxaana gool eber ka dhigay difaaceeda Najo waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Toni Kroos ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay gool eber ay guusha ku raacday kooxda Madrid ee martida u ahayd naadiga Real Valladolid Los Blancos ayaana hogaanka horyaalka La Liga kali ku noqotay waxayna Barcelona oo habeen hore guul daro kala kulantay Valencia kaga hogaaminaysa 3 dhibcood oo nadiif ah todobaadka Barcelona waa la garaacay hogaankana Real Madrid ayaa ku kali noqotay markana hadii aynu eegno natiijooyinka dhammaan kulamada laga ciyaaray horyaalka La Liga ayaynu eegi doonaa iyo waliba si lamid ah kulamada toddobaad soo aadan laga ciyaari doono kulamadii 21aad ee horyaalka Spain natiijooyinka soo baxay ayaynu eegaynaa markan Osasuna waxay 2 waxba kaga adkaatay Levante Espanyol iyo Atletico Bilbao gool ay ku heshiyeen Valencia ayaa 2 waxba Barcelona kaga adkaatay Alaves waxa 2 gool kaga adkaatay Villarreal Sevilla 2 waxba Granada ay kaga badisay Atletico Madrid iyo Leganes eber ay ku heshiyeen si lamid ah Celta Vigo eber ku heshiyeen Cateve gool waxba Real Betis ay kaga adkaatay Real Sociedad waxay 3 gool eber kaga adkaatay Mallorca si lamid ah Real Valladolid waxa gool waxba kaga adkaaday si dirqa ah Real Madrid kuwaas waxa ahaayeen kulamada toddobaadka laga ciyaaray balse aynu eegno toddobaadka soo aadan kulamada 22aad sida loo kala ciyaari doono Granada waxay koronka ku martiqaadi doontaa toddobaadka soo aadan Espanyol Real Madrid iyo waliba Atletico Madrid ayaa toddobaadka soo aadan ciyaari doona waana kulanka loogu magac daray Derby Madrid waynu arki doonaa natiijada ka soo baxdo Mallorca waxay garoonkeeda ku martiqaadi doontaa toddobaadka soo aadan Real Valladolid Valencia waxay soo dhabeey doontaa Celta Vigo Leganes waxay soo dhabeey doontaa Real Sociedad Eibar waxay soo dhabeey doontaa Real Betis Atletico Bilbao waxay soo dhabeey doontaa Cateve Sevilla waxay soo dhabeey doontaa Alaves Villarreal waxay soo dhabeey doontaa Osasuna Barcelona oo toddobaadka guul daro xanuun badan soo qaadatana waxayna soo dhabeey doontaa naadiga Levante toddobaadka soo aadan horyaalka La Liga sidaas ayaa loo ciyaari doonaa daawadayaal markana waxaan naga sugtaamaaba kulamadii laga ciyaaray horyaalada kale ee qaaradda Yurub horyaalka Talyaaniga ayaynu markaan eegaynaa daawadayaal hadii aynu ku bilaano horyaalka Talyaaniga kulamadiisa 31aad ayaa toddobaadkan laga ciyaaray toddobaadkan kulamadiisa 31aad ayaa laga ciyaaray kulamada ugu adkaayna waxay ahaayeen Napoli oo guul darro gaarsiisay naadiga lagu magacaabo Juventus Roma iyo waliba Lazio oo isku garab dhacay aynu gudgalna warbixinta kulankii Napoli iyo Juventus Napoli ayaa guul ay u qalantay ka gaartay Juventus istaadiyaheeda San Paulo
Napoli ayaa guul ay u qalantay waxay ka gaartay kooxda Juventus oo martigu ahayd garoonkeeda San Paolo Stadium kadib markii ay kaga adkaatay 2 gool iyo gool eegayna markaan sida natiijooyinkooda ay ku soo baxeen iyo waliba kuwa toddobaad soo aadan laga ciyaari doono kulamada 12 toddobaadkan natiijooyinkooda hadii aynu eegno Brescia gool waxba AC Milan ayaa kaga badisay Spal 3 gool iyo gool Bologna ayaa kaga adkaatay Fiorentina iyo Genoa eber ku hijiyeen balse ciyaartu ugu laga badnaa ayaa toddobaadkan waxay ka dhacday horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga Torino waxaa 7 gool waxba kaga adkaatay Atlanta Atlanta waa adag tahay Atlanta naada adag waa ku hadda sanadka Champions League meel fiican ay ka soo gaartay Inter Milan oo waliba la siiliicaysa Brescia ayaa Cagliari barbadhac gool iyo gool la gashay Silmede Parma 2-0 Udinese ee kaga adkaatay Sampdoria eber Sassuolo ay isla galeen Hellas Verona 3-0 Lecce ay kaga badisay Roma gool iyo gool Lazio ay la gashay derbiga caasimada gool iyo gool ugu soo dhamaaday Roma iyo Lazio hal goor inay ku wada ciyaaraan hal magaalada ka wada dhisan yihiin waa magaalada Roma ka wada dhisan gool iyo gool ay ku heshiiyeen balse kulanka xamaasad u yeelay horyaalka Serie A wax uu yahay Napoli oo ka adkaatay Juventus kagana adkaatay 2 gool iyo gool natiijooyinka toddobaadka horyaalka Serie A waa caynka daawadayaal markaan waxaynu eegi doonaa kulamada 22aad ee toddobaad soo aadan laga ciyaaro doono horyaalka Serie A Bologna garoonkeeda Brescia ku martiqaadi doonta Cagliari Parma soo dhabeey doonta Sassuolo Roma soo dhabeey doonta Juventus Fiorentina qaabili doonta Milan Hellas Verona ayay martiqaadi doonta Atlanta oo toddobaadkan ciyaar aad u xamaasad badan ciyaartayna waxay soo dhabeey doontaa Genoa Lazio Spal soo dhabeey doonta Lecce Torino ayay soo dhabeey doonta Udinese Inter Milan martiqaadi doonta Sampdoria Napoli ayay martiqaadi doonta waa kulamada 22aad ee toddobaad soo aadan horyaalka Serie A laga ciyaari doono markana waxaynu eegaynaa daawadayaal kulamada laga ciyaaray horyaalka dalkaas iyo waliba Jarmalka kulamada 19aad ee laga ciyaaray horyaalka Germany Borussia Dortmund waxay 5 gool iyo gool kaga adkaatay Köln Borussia Mönchengladbach waxay 3 gool iyo gool kaga adkaatay Mainz 0-5 sidoo kale Frankfurt waxay 2 gool iyo eber kaga adkaatay RB Leipzig Freiburg 2-0 waxa kaga adkaatay Paderborn Union Berlin 2-0 waxa kaga adkaatay FC Augsburg Wolfsburg 2 gool iyo gool waxa kaga adkaatay Hertha BSC iyo Bayern Munchen oo 5 gool iyo eber kaga adkaatay Schalke 0-4 Werder Bremen Hoffenheim ayaa 3-0 kaga adkaatay Leverkusen Fortuna ayaa waxay kaga badisay 3 gool iyo eber natiijooyinka toddobaadkan ay kuwaas ahaayeen daawadayaal markaana kulamada 20aad ee horyaalka Germany ayaynu eegaynaa sida loo ciyaari doono toddobaadka soo aadan Hertha BSC waxay garoonkeeda ku martiqaadi doontaa Schalke 4 FC Augsburgna waxay soo dhabeey doontaa Werder Bremen Borussia Dortmund waxay soo dhabeey doontaa Union Berlin Fortuna waxay soo dhabeey doontaa Frankfurt Hoffenheim waxay soo dhabeey doontaa Bayer Leverkusen Mainz Everton waxay soo dhabeey doontaa Bayern Munchen RB Leipzig oo toddobaadkan guuldaro la kulantayna Borussia Mönchengladbach waxay soo dhabeey doontaa Köln waxay soo dhabeey doontaa Freiburg Paderborn waxay soo dhabeey doontaa naadi lagu magacaabo Wolfsburg ayay soo dhabeey doontaa hadaan halkaas kaga talaabno horyaalka dalka Jarmalka kulamada 19aad la ciyaaray iyo 20aad oo toddobaadka soo aadan la ciyaari doono markaan waxa ugu dambeeya horyaalka dalka Faransiiska toddobaadkan kulamada laga ciyaaray ayaynu markaan daawadayaal isha marinayna waa tahay daawadayaal markaana waxaynu gudagalaynaa ka sheekaynta horyaalka dalka Faransiiska kulamadiisa 21aad oo toddobaadka la ciyaaray natiijooyinka ayaynu eegaynaa kulamada waxay u dhaceen sida tan Nice waxay garoonkeeda gool iyo gool kula gashay Rennes Olympique waxay eber la gashay Angers Stade Brestios waxay 2 gool iyo gool kaga adkaatay Amiens Monaco waxay 3 gool iyo gool kaga adkaatay Strasbourg Montpellier waxay 2 gool iyo gool kaga adkaatay Dijon Saint-Étienne waxay 2 gool iyo gool kaga adkaatay Nimes Stade de Reims waxa hal iyo eber kaga adkaatay Metz Olympique Lyon waxay 3 gool iyo waxba kaga adkaatay Toulouse Nantes waxa gool waxba kaga adkaatay Girondins si la mid ah Lille iyo Paris oo ciyaarayna 2-0 Paris Saint-Germain ayaa ku adkaatay markaana waxaynu eegaynaa kulamadiisa 22aad ee toddobaad soo aadan laga ciyaaro doono horyaalka Faransiiska Rennes waxay martiqaadi doontaa Nantes PSG waxay martiqaadi doontaa Montpellier Amiens waxay martiqaadi doontaa Toulouse Nimes waxay martiqaadi doontaa Monaco Strasbourg waxay soo dhabeey doontaa Lille Dijon waxay soo dhabeey doontaa Stade Brestios
Ankara waxay soo dhaweey doontaa Stade Reims. Nice waxay soo dhaweey doontaa Olympique Lyonnais. Metz waxay soo dhaweey doontaa Saint-Étienne. Girondins waxay martiqaad doontaa Olympique. kulamadaas soo aadan ayaa laga ciyaari doonaa. markaana kala sareynta horyaalka ayaynu eegaynaa yaa hogaaminaya. Kaalmaha koowaad PSG ayaa ku jirta 21 kulan ciyaartay, 17 kulan ka mid way badisay, xalay barbadhac gashay, 3 laga badiyay, 52 gool dhalisay, 14 gool laga dhaliyay, 38 gool way u soo xareysaa, 52 dhibcoodna waa ay leedahay. Kaalinta labaad waxa ku jirta naadiga loo magacaabo Olympique. 20 kulan ciyaartay, 12 badisay, 6 barbadhac gashay, 3 laga adkaaday, 30 gool dhalisay, 20 gool laga dhaliyay, 9 gool ayaa u soo xareysa, 42 dhibcoodna waa ay leedahay. saddexaad Rennes ku jirta 20 kulan ciyaartay, 11 badisay, 4 barbadhac gashay, 6 ayaa laga badiyay, 26 gool dhalisay, 19 gool laga dhaliyay, 7 gool ayaa u soo xareysa, 37 dhibcoodna waa ay leedahay. kaalinta afraad Montpellier ayaa ku jirta 20 kulan ciyaartay, 9 badisay, 6 laga badiyay, 6 ayaa barbadhac gashay, 30 gool dhalisay, 20 gool laga dhaliyay, 9 gool ayaa soo xareysa, 33 dhibcoodna waa ay leedahay. kaalmaha ugu hooseeya hadii aynu eegnana Amiens 18 ku jirta, 19aad Nimes ku jirto, 20aadna Toulouse ayaa ku jirta, waana saddex naadi ugu hooseeya. markaan hadii aynu eegno dhanka waliba gool dhalinta yaa hogaaminaya. waxa hogaaminaya Ben Yedder oo Monaco ciyaar 4 gool ku hogaaminaya. Mbappe 13 gool ayuu leeyahay, kaalin ku jira PSG ayuu ciyaara. Neymar kaalin 3 ku jiro, 13 gool dhaliyay PSG uu ciyaara. Dembele 12 gool leeyahay, Olympique Lyonnais ayuuna u ciyaara. ciyaartooyda dhanka waliba caawinta ayuuna fiirinaynaayee. Angel Di Maria ayaa caawinta hogaaminaya, 8 gool ayuu caawiyay PSG ayuu ciyaara. Suleimani 7 gool oo caawiyay Monaco ayuu ciyaara. Court wuxuu u ciyaaraa Stade Brest 7 gool caawiyay. Thiago Mendes 6 gool oo caawiyay Olympique Lyonnais waaye. Neymar 5 gool oo caawiyay PSG u ciyaara. Marco Verratti 5 caawin sameeyay PSG ayuuna u ciyaara. guud ahaan daawadayaal waa inaga inta barnaamijkii aad kala socoteen Xareed Media. intaan ku kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. حيب الرياضة والملعب